Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha qaaliga kusoo dhawaada lakcharadeena imtixaanaha ahaa maadada Ocular Microbiology. Hadduu ilaahay raado waxaan ka hadlaynaa maanta intraocular bacterial infection. Waa bakteeriyada isha gudaheeda soo gasha taasoo sababta infection. Bakteeriyadaasaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay raado. Bakteeriyada isha soo gasha waxaan ka hadlaynaa ciwaanka guud waa bacteria endophthalmitis. Waa inflammation inay gudaha soo gasho bakteeriyadan ay waxay sabaysaa inflammation. Marka involves waxay ku lug leedahay bacteria endophthalmitis waxay ku lug leedahay involves infection inay ka sameyso internal globe of the eyes, qaybta gudaha ee isha inay bakteeriyadan ku sameyso infection. Marka guud ahaan typeska endophthalmitiska inflammation inuu ka dhaco qaybta dambe waxyaabo badan ayaa sababa. According based on waxaa u fiirinaynaa afar qayb ayaan u fiirinaynaa. Qaybta koowaad inuu infection ama inflammation inuu ka dhaco qaybta dambe waxyaabaha sababi kara according waxaa u fiirinaynaa broad of category waxaan wax sababay. Tusaale ahaan hadduu yahay bacteria waxaan dhahnaa bacteria endophthalmitis ayaan dhahnaa. Fungi hadduu yahay fungi hadduu sababana waa broad of category according to the what cause ayaan u fiirinaynaa endophthalmitiska guud ahaan classification markii loo fiirinayo. Tan labaad soo hartay according to waxaa u fiirinaynaa clinical ahaan waxaan maxaa sababay inflammation kan oo qaybta dambe gudaha ka dhacay goormee la arkay ayaan fiirinaynaa. Post traumatic jug markay dhacday kadib maa la arkay endophthalmitis kan. Hadday jugta kadib ay dhacdo waxaan dhahnaa bacteria post traumatic endophthalmitis aan dhahnaa. Waxay dhacday inflammation kan oo infection ka wata qaybta dambe ka dhacay markay jug dhacday kadib. Ama hadda waxaan dhahnaa post operative qaliinka kadib qaliinada isha hadduu ilaa raado noqdooyinkan hadda hoosta ka xariiqay mid walba iyadoo faahfaahsan gadaal dambe kaga hadlayna cashirkeena. According to waxaa u hadlaynaa road of infection qaabka infectionka uu yahay. Tusaale ahaan hadduu yahay exogenous ama endogenous hadduu yahay. According to waxaa u fiirinaynaa specific infection agent waxa si gooni u sababay mataqaana bacteriadan endophthalmitis kan kacday ayaan fiirinaynaa hadduu ilaa raado. Haddaan ku bilaabno post operative endophthalmitis. Post operative waxaa la dhahaa qaliinka kadib endophthalmitis ka dhacay inflammation ka dhacay oo qaybta dambe gudaha isha ka dhacay. Waa one of the most serious complication. Waa mid ka mid ah serious complicationska oo indhaha ka dhaca any type of surgery. Marka post operative endophthalmitis kani wuxuu noqon karaa any type of surgery. Qaliin walba oo isha lagu sameeyo ayuu noqon karaa. Laakiin mataqaana can cause waxay sababi kartaa can cause waxaana sabab la any type of surgery. Saad soo sheegnay oo wax walba oo qaliin walba oo isha lagu sameeyo ayaa waxaa ka dhalan karo post operative endophthalmitis gudaha inay bacteria isha usoo gasho kadibna infection ku sababto. Marka most of them qaliinada ugu caansan ee sababta oo lagu arkay waxaa ka mid ah cataract qaliinada la sameeyo cataractiga. Qaliinka cataractiga markii la sameeyo qaliinka markii la sameeyo muscle waxaa soo dhuumata bacteria. Tan labaad soo hartay waxyaaba mid labaad ugu badan mataqaana ee sababta bacteria post operative ka qaliinka kadib endophthalmitis ka dhaca waa glaucoma. Waa pressure-ka indhaha ku furmo. Sidoo kale glaucoma surgery labadaas qaliin ugu caansan. Marka natiijada ka dhalanaysa maxay tahay marka visual prognosis-ka natiijada ka dhalanaysa mataqaana markay dhacdo qaliinkaas kadib bacteria post operative endophthalmitis natiijada ka dhalanaysa maxay tahay marka natiijada ka dhalanaysa aad ay u xun tahay oo mataqaana waa aad ay u liidataa waa mataqaana ma fiicna. Marka waxaa jira marka intaas oo qayb kala fiirna post operative endophthalmitis-ka kudwaad 4 nooc 5 nooc aan ka hadlayna. Tan koowaad aan ku bilaabayna hadduu ilaa raado. Tan koowaad post operative endophthalmitis following the cataract. Qaliinka kadib inflammation kan ama infection kan qaybta gudaha isha ka dhacay anagoo u fiirinayna cataract qaliinka isha caadka lagu fiiqo kadib waxa imaado surgery-ga oo markii laga hadlayo in severe visually loss guud ahaan wuxuu ku soo warta visual loss oo ku dhaca lacala hadduu dhaco. Laakiin percentage wuxuu ku yahay 3 meelood hal meel ka mid uu yahay. Qaliinka cataractiga haddii la sameeyo waxaa la qaliinka cataractiga isha lagu fiiqo haddii la fiiriyo bacteria endophthalmitis 3 meel ka mid ah ayuu noqonaa. Tusaale ahaan 35% wuxuu noqonaa cataract ayuu noqonaa boqolkiiba 35 ka mid ah 70 kale wuxuu noqonaa mataqaana inuusan dhicin laga yaabaa. Balaadnes lacala hadduu dhaca ka waran bacteria endophthalmitis qaliinka cataract kadib dhacay indhoola soo qofka ugu dhigi karaa indhoola wuxuu ka dhigi karaa la percentage asigana waxaa la qiimeeyay boqolkiiba 5 boqolkiiba 5 ah
shan meelood markii loo qaybiyo hal mid ka mid ah ayuu blindnesskaas noqon karaa. So tusaale ahaan haddii boqolkiiba haddii loo 20 ka mid ah noqonaa 80 kale waxaa laga yaabaa inuusan blindness oo indhoolo uusan ku sababin. Resultiga oo mataqaana endophthalmitis-ka guud ahaan haddii lacal ee dhacda leh resultiga oo ka dhalanayo endophthalmitis-kaasi natiijadu wuxuu noqonaa vitrectomy guud ahaan isha vitruska in lasoo saaro. Waxaa la dhahay study waxaa lagu cadeeyay study shows waxaa lagu sameeyay 70% boqolkiiba 70 culture-ka inuu yahay positive waxa sababa inay tahay coagulase negative positive coagulase negative ama waxaa kaloo sababa bacteria kasoo hadlayna oo noocyada badneed oo journal microbiology kaga soo hadlayna gram positive streptococcal epidermis ayaa sababta leh. nooca koowaad mataqaana Floyd cataract-ga intaas oo soo gagweyn. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa epidemic pseudovakia bacteria endophthalmitis. kan waxaa waaye waxaa la geliya mataqaana isha markii qaliinka oo cataract-ga markii isha loo fiiqo waxaa la geliyaa mataqaana pseudovakia bacteria. So marka mostly waxay la socotaa pseudovakia bacteria oo epidemic endophthalmitis waxay la socotaa mostly implantation loo sameeyo lensiga. qofka markii qaliinka kadib loo sameeyo cataract-ga waxaa loo geliyaa lens loo geliyaa mataqaana kaasoo aragtidiisa kii hore camal ka dhigaa. So marka lensigaas loo xiraa. marka mostly bacteria waxay la socotaa lensigaas la gelinayo markii la gelinayo processkaas lagu gelinayo inta badan bacteriadaas dhacda. bacteriadaas dhacaysana waxaa loo yaqaanaa markii oo lensiga la gelinayo pseudovakia bacterial endophthalmitis oo epidemic. So marka waxaa jira nooca saddexaad nooca afraad laakiin nooca saddexaad inoo tahay positive filtration of endophthalmitis. kan waxaa waaye isagana qaliinada hadday kasoo hadlayna camal horta mostly waxay dhacdaa dadka oo mataqaana bacteria long risk waxay ugu jirtaa dadka guud ahaan loo sameeyo glaucoma filtration surgery oo glaucomas pressure indhaha lagu dejinayo oo markay dhibaatada baabi'iso mataqaana glaucomada dhibaataysa kadib qaliinkaas la sameeyo. qaliinadaas la sameynayo waxaa loo yaqaanaa trabeculotomy. waa surgery la sameynaa meeshuu ka yahay trabeculoplasty meeshuu hadda ectomy uu ka yahay waa qaarkood waxaa ku arkay trabeculoplasty arkay plasty markuu yahay waxaa waa laser la sameynaa. laakiin markuu ectomy uu yahay surgical qaliin ahaa waxaa la isticmaalaa surgical la isticmaalaa. So marka qaliinkaas dadka gala inta badan lagu arkaa qaliinkaas glaucomada dadka gala inta badan bacteriadan iyadana lagu arkaa. nooca afraad waxaa loo yaqaanaa post traumatic endophthalmitis asiga mostly inta dheer waxaa kasoo hadlayna post operative qaliinka kadib endophthalmitis ka dhaca. tan laakiin waxaan ka hadlaynaa post traumatic waxaa dhacda jugta kadib waxaa dhacda endophthalmitis juga qofka ku dhacday kadib waxaa qaybta dambe isha gudaha qaybta isha waxaa ka kacay endophthalmitis inflammation ka dhacay. So marka inflammationkaas mostly wuxuu la xiriiraa mataqaana accident oo injury of the eye isha inuu dhaawac qofka soo gaaro mostly la xiriira. laakiin mostly waa uncommon waa inta badan ma badno laakiin waa la arkaayo post traumatic qaliinka jugta kadib markay dhacda ayaa mataqaana ayay dhacda bacteriada soo gasha. nooca ugu dambeeya ka hadlayna waxaa loo yaqaanaa metastatic endophthalmitis asiga waxaa sababa secondary infection kii koowaad maarey secondary infection markii laga hadlayo waxaa ka horeeyay oo problemkaas waxaa kaga horeeyay. So marka mostly waxaa la isticmaalay tusaalehaan jugaa dhacday jugtaas markay dhacday isha daawooyinkaas jugtaas dhacday primary markuu dhaco daawooyinkaas lagu xalinayo oo jugtaas dhacday daawooyinka lagu daaweynayo waxay noqonaa marka secondary infection hore dhaca infectionka labaad xiga oo bacteria marka usually wuxuu la xiriiraa inta badan wuxuu la xiriiraa oo personiska dadka isticmaala mataqaana daawooyinkan oo immunological comprehensive daawooyinkan loo isticmaalo ayaa mostly mataqaana ama intravenous drugs abuse inta badan labaas endophthalmitis intaas oo dhaca daawooyinkaas oo la isticmaalay. guud ahaan waxaan kaga hadlaynay bacteria endophthalmitis. waa idinkaga mahadcelinaya daawashada videogan. wixii su-aal iyo comment wixii su-aal iyo cashirka meesha laga fahmo waa dhanka comment inoo reeb. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.